waxaan ahay associate professor Dr. Nazan Karahan waxaan ahay ku-xigeenka madaxa jaamacadda cilmiga caafimaadka Soomaaliya Muqdisho Rajab Tayyip Erdogan ee kulliyadda cilmiga caafimaadka waxaan ka yimid kambaska Ankara ee jaamacadda waxaan ahay madaxa qaybta umulisooyinka ee kulliyadda Gulhane ee culuumta caafimaadka waxaan halkan joogay 4 bilood iyo badh waxaan macallin ahay 21 sano waxyaabo badan oo aan la yaabay ayaa dhacay intii aan halkan joogay laakiin waxaan rabaa inaan sheego laba dhacdo markii iigu horeysay ee aan dibadda u baxay waxaan arkay dumarka oo wajiga u xidhan yahay arrinta kale ee la yaab kale ayaa ah si kasta oo khatar magaalada uga jirto haddana qof kasta wuu faraxsan yahay doonayaan inuu nolosha ku raaxaysto dhoolla cadeeyo si wanaagsanna u fikiro taasi aad bay ii cajabisay mid ka mid ah waxyaabaha aan aadka u jeclaaday ayaa ah mar labaad dumarka sababtoo ah waxay u muuqdaan kuwo aad u xoog badan kaliya indhahooda ayaa la arki karaa laakiin waxaa aad u qurux badan in laga dareemo awoodooda iyo tamartooda indhahaas sidoo kale dumarka Soomaaliyeed waa kuwo aad u qurux badan intii aan halkan joogay waxaan wax cilmi baadhis ah ma samaynin iyadoo ay ugu wacan tahay waajibaadkayga maamulnimo iyo mudnaantayda oo ahayd inta badan ardayda waxbarashadooda laakiin waxaan qorsheeyay cilmi baadhisyo waxaan filayaa markii aan halkan ka tago inaan sameeyo waxa ugu muhiimsan ee aan doonayo inaan u sheego macallimiinta Turkida Soomaaliya waxa laga faa'iidaa khibrado aad u kala duwan waxaan soo maray waqti aad u adag laakiin waxaan ka qaatay waayo aragnimo saameyn ku yeelan doonta aragtidayda nolosha marka waxaan u malaynayaa intani ay tahay mid ka mid ah meelaha ay tahay in aqoon-yahano badani ay yimaadaan